هاي شباب صاوي واجرا وادلي انا ادلي 28 jirkan safarka kaga soo galay Muqdisho gobolka Shabeellaha Hoose laakiin ku dhashay Boqol ma diidan ayada loo heystay ee dilka Allah u naxariistay marxuumiinta kala ah Ali Cabdulle Maxamuud iyo Cabdullaahi Maxamed Hilowle 13 November sanadkii hore iyo 12 Oktoobar isla sanadkaas ayay ku kala dileen laba marxuum wada jir iyo dharkeenle laakiin ciidamada amniga ayaa ku guuleystay inay midna dhaawacaan kan kalena ay qabtaan isagoo bad qaba marqaatiyaal goobjoog u ahaa dhacdadan ayaa mid loo weydiiyay marag furkooda xafiiska xeelaalinta ciidamada qalabka sida ayaa halkan ku soo bandhigay cadeemo ay ka mid yihiin bistooladihii lagu geystay dilka qaraalka eedeysanayaasha iyo baarihii kiiska Cabdulle Axmed Muude ayaa isaga iska dafiray eedo loo jeediyay waxaase loo dhaawacay dil uu geystay Allah u naxariistay Ali Cabdulle Maxamed xabadii kadib anigu cararay xayaal badan oo isla cararay aniga magaalada ma aqoonina meel oo maxaa la beerar badan ku toos meesha orad ku gooy aniga cararaya dhowr xabadood u dhacday midii uu dareed marka ay dhacdo calooshay dhaaf fadhiisatay tii ameer ugu dambeysay Muumin Xuseen Cabdullaahi ku xigeenka xeelaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda la wadaagay in labada eedeysane aysan u baahneen cadeemo dheeri ah oo ay wali ku taagan yihiin fikirkii takfiirinta dadka iyo dilkooda iyo calaamaadka islaamka ka yeerayo dadka la joogay salaada Ilaahay dukanayo ilaa hadda dhahayo waxaan ka aaminsanahay inay yihiin mataqaanaa gaalo waa qof aan gaalku uu sheegayo qofku ku tilmaamayo iyo islaamka midnaba aan sharxi karin oo wax mataqaanaa tusaale aan ka bixi karin waa qof sheegay quraanka inuu laba juso kaliya ka soo bartay uguna dambeysay waagii dugsiga uu ka cararayo caruurta ahaa يعني ميل دين لغو هايو iyo meel diin looga sheekeynayo ana arag maalinta ilaa hadda inta ka dhaxle kaliya waxa loo sheegay la baray qofkan ku dhahno waa gaal waa dil waa inta oo kaliya waa qof aqliga ku jiro iyo xigmadda ku jirta inta tusisay iska daay inuu gaal ka sheekeeye islaamnimada isaga uu sheeganayo mid isaga uu sheeganayo islaamnimada hadii la weydiiyo arkaanta iyo shuruudda ay ku dhisan tahay waa qof aan hal hab xitaa ka sheegi karoon ka garanayn xeelaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida General Cabdullaahi Buule Kamey ayaa maxkamadda weydiistay raf kale waxay dhageysatay marxaatiyalkii la hor keenay oo si buuxda ugu cadeeyay qaabkii ay wax u dileen iyo falalkii ay dambiyadaha siday u galeen waxay dhageysatay qiraalkii eedeysanayaasha maxkarsoorka hortiisa ay ka qireen oo la akhriyay waxaan orkeennay cadeymihii marag muujinta ahaa oo ay ku jirto bastooladii ay wax ku dileen marxuumka uu ku dilay eedeysanaha koowaad marxuuminta uu ku dilay sidaa darteed maxkamadda sharafka le waxaan weydiisanaynaa mar haddii ay caddaatay in eedeysanayaashu ay dembigii ay qirteen markhaatiyaalkuna si buuxda ay ugu caddeeyeen maxkamadda waxaan weydiisanaynaa in ciqaabta u qalanta oo ay qorayaan aayaadka qur'aanka iyo axaadiista aan ku soo eedaynay iyo qodobada aan ku soo eedaynay in lagu xukumo ciqaabta u qalanta oo ah dil toogashaa si loo dhadhansiiyo cawaaqib xumada ay ka dhaxleen dilka ay bani aadamka macna darada u dilayaan kuwa kale ee khadka ku soo jiraana ay ugu tusaale qaataan cawaaqib xumada ay ka dhaxli karaan maxkamaddu waa mahadsantahay abukaati Ismaaciil Yuusuf Xalana ayaa maxkamadda ka codsaday in la hubiyo caafimaad qabka eedeysanayaasha uu shaki geliyay markan waxaan soo jeedinaynaa mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh in eedeysanaha koowaad loo fiiriyo qodobka konton iyo koowaad dhamaystir la'aan maskaxeed لأن قف سد بوحدة أنت ماذا دهايو وحسن أهي أو هذا الله هايستو إنه سنجرينا من سنة لكن إسقى فكر كيسي ونقضي هذه جرتنا محكمة أيضا نوع أقران هذا سنة هلا ما دام أوسم بجرين سيد أوشكتي أو خرتي محكمة وحاطين إن نوفيرسو قضبك بقول لبعتن إلابو حركة هبك عقاب الصومالية وسندم بلهن برينيه go'aanka maxkamadda iskale maxkamadda waa mahadsantahay Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuuti gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda dhageysiga garmaqalka la xiriira eedeysanayaal Umar Aadan Maxamed iyo Cabdulle Axmed Muudey intaas ayuu ku egyahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saarayso wabillahi tawfiiq Cabduqaadir Ciise warbaahinta qaranka Muqdisho